waxaa maanta xafiiskayga igu yimi ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre halkaasoo nagu soo booqday shir nooga socday aniga wasiirka kalluumaysiga dowladda federaalka iyo wasiirada xubnaha ka ah dowladda federaalka ee dowlad goboleedyada wasiiradoodii kalluumaysiga oo Puntland mooyaane intii kale halka ay ku dhanaayeen Puntland dhismaha dowladda cusub iyo arrimahaas ay u maqnayd marka waxa aanu ka hadlaynay wada shaqayntayadii iyo arrimihii ra'iisul wasaaruhu wuxuu nagu dardargeliyay inaan sii xoojino wada shaqaynta arrimo aan rabno inaan horumar ku sameeyno oo kalluumaysiga ku saabsan oo deegaanada dowlad goboleedyada ee xeebaha ku yaala waan isugu nimay shirkayagaas muddo noo socday meel fiican buu noo marayaa ra'iisul wasaaruhuna waa nagu bogaadiyay hawsha aan wadno iyo ma garanaysaa isu imaatinkayaga aan wada joognay aad buu noogu mahad celiyay wuxuuna nagu dardargeliyay wada shaqayn joogta inaan yeelano iyo inaan warbixino soo gudbino wasaaradda kalluumaysiga dowladda federaalka warbixino ay u soo gudbiso xafiiska ra'iisul wasaaraha joogta ah oo laga warbixinayo wada shaqayntana dhex marta anaga iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka marka hawshaas si fiican bay u socotaa waxaan uga warbixinay arrimihii shirarkayga ku saabsanaayeen dhammaantood oo dhowr maalmood socday ilaa wiigii hore ilaa haddeer arrimahaasoo dhan waxay hayeen arrimo aan meel fiican ka gaarnay qaarkoodna waa noo dhiman yihiin wada shaqayntuna waa noo soconaysaa annaga wasaaradaha kalluumaysiga maadaama aan nahay arrimo waxqabad inta badan aan ka shaqaynana marnaba xidhiidhkayagu ma kala go'in aad buu u fiicnaa